السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا wanaagsan meel walba adduunka ka joogtaan waa aniga magacayga Ibrahim Bito ku soo dhaw Bito Jana. Maanta waxaan idin hayaa xog rasmi ah wararka sportiska maanta ku soo dhawaada. Maanta wararka sportiska maxaa ka cusub? ninkan walaalkay waa is cafine wax dacwo isku ma qabno xal ana soo caay haddana ana macnaa go'aansaday inaan walaalkay raal geliyo alxamdulillah shukran shal wanaaga isku soo raacnay maanta waxaan jeclaysanaa ninkan walaalkay sida wanaaga inaan ku qalto Awees Bafo wuxuu kaloo yiri haddii laba kulun adag hadoo isku imaado durdurmeediya iyo anigoo koox kala wato haddaan isku hor imaado ma laga yaabo inaad durdurmeediya aan gool aan ka dhaliyo micnihiisa waa sidaas. Durdurmeediya Awees Bafo gool kama dhalinayo mana ka hor imaan doono sida afkiisa uu ku sheegtay. Durdurmeediya waa meeshuu kusoo xambaxay oona kusoo kobcay. Awees Bafo mar damba lagama yaabo inaa YouTube aan soo fadhiisto oo macnaa ninkan Xasan Toob aan soo caayo mise qof aniga YouTube ka soo caayo mar damba lagama yaabo inay taas ay dhacdo. hadday duruufo kugu khasbaan ka waran duruufo dhaqaalan waxay doontaa ahaato duruuf maanta wax walba ahaato aniga ballan iyo axdiyaa qaaday gudoomiyaha degmada Xamar Jabaan noola fadhiyo aniga go'aan qaatay hadda aniga gudoomiyaha waxaan ku maanta hadda aniga YouTube soo fadhiisto oo macnaa qof soo caayo mise Xasan Toob soo caayo inaa lii xir anaa diyaar u ah saldhiga liigay ali ugu dambeyn ciyaaryahan Awees Bafo oo ka tagay gagadii ku ciyaari jiray ee durdurmeediya. Ugu dambeyn kabtanka kooxda durdurmeediya Xasan Toob oo afkiisa ka qirtay oona sheegay maanta wixii laga bilaabo ciyaaryahankaasi inuu fasax yahay oo si free ah uu tagi karo gagadii uu joogay ee durdurmeediya. daawadayaal haddii YouTube lay aad tahay oo Muqdisho ku nooshahay Awees Bafo waxa uu diyaar u yahay in maxaa la dhahaa video ka duubato wixiisa u tuuraysaa macnaa wax aan galitaan ahayn ma jafo ma jirno jafitaan ma jiro karbaash daaqadaha waxaa loo wada furay kooxihii ciyaaryahankaas doonay oo ka mid ahay in badan raadinay oo ka mid ahay kooxda kubadda cagta ee Fartuun Balbalaarka official. Laga yaabaa in shirkadda u shaqayn jirtay in mar labaad ku noqotay maya maanta go'aan buuxo fiirsateen waqtiga ugu dambeeyay fiideo iskuna fiirsanayso go'aan buuxo aniga maan degmada Xamar Jajab ku soo qaatay gudoomiyuhu taagan maamulka degmada taagan meeshii labada buuxo walaalay buuxan hadda walaashay yaa diiday baad ana iska dhaaf walaashay sitay Yuusuf aadiiday oo dhahade aniga ninkan Xasan Toob ebel ana ninkan soo raacsi walaalkay mo waan run ila soo raacsiis ila raac ninkan shala ana soo raacsiino Xasan Toob walaalkayga ma ku aaminay. Waxaa ciyaaryahankaas in badan raadinay Fartuun Balbalaarka. Maanta wixii laga bilaabo ciyaaryahankaas wuxuu noqday mid xur ah sida afkiisa oo ka qirtay. Maanta wixii laga bilaabo in lagu arkin Awees Bafo gagada caanka ah oo ciyaaryahanada soo saarta ee durdurmeediya. Waan ognahay durdurmeediya in ciyaaryahan badan ay soo saartay waxaa ka mid ahay Fartuun Balbalaarka oo maskaxda naga qabsatay oo in badan waxay sameysay waxay gudo iyo waxay qabatay aan wada aragnay. waa ciyaaryahankii labaad oo gagadaas ka soo xambaxay oo maanta sidaan sameynayo ugu yaraan 2 bil ayuu kooxdaas la tababaranayay 2 bil ayuu gagadaas ku sugnay. Ugu dambeyn maanta beeciisa xurta ah oo soo gabagaboobay. ugu dambeyn maanta asiga iyo macal familkiisa waxay qireen in gagada durdurmeediya maanta wixii laga bilaabo Awees Bafo oo ka shaqeynaynin oona dib dambe oo aan u soo safan doonin kooxda kubadda cagta ee durdurmeediya oo kabtan waa Xasan Toob sida ay hadalka ay u dhigeen ila daawada. الرحمن الرحيم أنا أويس Bafo walaashiisa بنت Bafo la dhahaa Awees iyo Xasan Toob qalaaf dhaxda ku dhac qalaaf kadib waa heshiyeen laba qofood oo walaal ah gacanta isku dhiibeen haddana Awees waxaan u rajaynaynaa inuu YouTube furto oo shakhsigiisa oo u shaqeysto. Marka ciyaaryahankaas Awees Bafo waa maanta wixii laga bilaabo wuxuu noqday ciyaaryahan free ah koox walba kooxday rabto koox walba oo ciyaaryahankaas rabta Awees Bafo waxay ku helayaan si free ah lacag la'aan sidoo afkiisa oo ku qirtay ciyaaryahankaas wuxuu rabaa inuu sameysto istaadiyo cusub koox cusub
macallimiin cusub inuu samaysto ayuu rabaa, waayo wuxuu rabaa inuu ka mid noqdo kubadda cagtan dadkan ciyaarayaan sida youtuberada qaar camal inuu noqdo ayuu rabaa, sidii hore ciyaaryahanadii hore sida Durdur Media ay u mid ahaayeen sida Fartuun Balbalaarka camal. oo aniga shakhsigeeda waa u shaqaysto oo YouTube goona oo aniga shakhsiga inaa furto oo aniga aan iska shaqaysto cameraman hadda aniga ciyaalka adeerka ah waa mise abtiga waa cameraman way noqdaan inay kamerada ay qabtaan aniga YouTube-ka goona iskaga shaqaysto. ninkaas walaalkeen shal wanaaga isku soo raacnay iyo kalsooni iyo galgaceel maantan waxaa jeclaysanaa kalsoonidii iyo galgaceelkii wanaag shal isku soo raacnay inaa maantan ku kala tagno sida Durdur Media ay u mid ahaayeen sida Fartuun Balbalaarka camal oo heshiis 2 sano oo la jirtay Durdur Media oo heshiiskeeda ugu dambeyn soo gabagaboobay sanadkii 2019 sanadkan hadda gabagabada yahay. 2 bil ka hor ayay Durdur Media waxay soo bandhigtay ciyaaryahankan cusub Abees Bafo. Abees Bafo waxay ka filaysay Durdur Media in sanadooyin badan heshiiska uu saxiixi doono qalinka, laakiin balse taas ma dhicin. Ugu dambeyn Abees Bafo ayaa maanta gagada caanka ah Durdur Media macsalaamiyay. xilli Abees Bafo oo daaqadaha u furay cid walbo ciday doonaysa Abees Bafo inuu gacmo furan oo kusoo dhaweyn doono sidoo hadalkiisa u yiri. go'aanka aniga maanta gaariya waxa ay qof alaal qofkii walaal oo YouTube leh aniga ii imaad oo dho Abees ma ahaan nin majaajiliista ta maanta xastooba ku soo caan bixi micnaa majaajiliista ta qof alaal qofkii YouTube leh aniga ii imaad oo dho Abees ma ahaa YouTube kaas maanta iga dansan YouTube kaas ina ii kalkicisidaa raba Abees oo soo bax waxaagan diyaar waa qofkaas waa raaca waa la shaqeysana. Ugu dambeyn kooxda Durdur Media wayna waaleysaa waayo akademiyadeeda mar walba waxay ka soo bixisaa ciyaaryahanno da'yar mana ku dheefsadaan. Mar walba natiijadeeda waxay noqotaa caay aflagaado iyo inay xoolaha ciyaaryahanada ay dhunsadaan sida canshuurada qaar loogu soo dhiibay dibadaha inay dhunsadaan. Durdur Media badi waxaa lagu eedeeyaa inay yihiin ciyaaryahanada ay soo saaraan waxay cabasho badan ay ka soo jeedaan in xurnimo qofka aysan siineynin xoolaha oo qofka uu leeyahay xaqiis inaysan ilaaliyeen. ciyaaryahanka mar walba ku shaqeeyaa kubadda cagta ku ciyaaraa wax walba arabto ku sameeyaa. ugu dambeyn ma ahan mid xuquuqda ciyaaryahanka ay ilaaliso Durdur Media. badi ciyaaryahanno badan way soo saartaa balse laakiinse natiijadooda badi ma helaan mana ku dheefsadaan. dad kale ayaa ku sii dheefsado sida maanta aan isheena ugu joogno. shalay ciyaaryahan Abees Bafo wuxuu ahay waan ogeynay maanta wuxuu yahay inuu u jeednaa. Abees Bafo ayaa maanta akhbaarihiisa meesha ayaan kusoo gabagabeynayna. Abees Bafo maanta wixii laga bilaabo wuxuu noqday ciyaaryahan xur ah baa xurta ayuu ku baxay gegada caanka ah ee ciyaaryahanada soo saari jirtay Durdur Media ayuu ka tagay waxaana booskiisa maanta wixii laga bilaabo oo buuxina ciyaaryahanka cusub oo hadda la keenay oo lagu magacaabo Abtidoon. waan arki doonaa wax qabadka la imaan doono Abtidoon. waa anigoo ah magacayga Ibrahim Buto waxaan kugu soo dhaweynaa channelkayga kusoo dhawow anigaan kusoo dhaweeyay waana mahadsantahay video hadaa ka heshay please like star aad iyo aad u mahadsantahay. kulanti dambe oo xiiso leh idinkana hadaa YouTube leetihiin waa doonin kartiin ciyaaryahankaas baa xurta maanta suuq u yaal oo lagu magacaabo Abees Bafo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi